gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa eedeymihii ku kulay waxa uu soo jeediyay gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi oo ku eedeeyay in dalka uu doonayo in dhibaato iyo dagaal sokeeye uu ku abuuro deegaanada Soomaaliland waraysi khaas ah maanta uu siiyay telefishinka Home Cable TV ayuu gudoomiye Ciro waxa uu diray fariintan Muuse Biixi Cabdi waxaanu yiri waxay la tahay inay yandaro tahay dad ay qoyan yihiin hagardaamadii iyo dhibaatadii ay dalka u geysteen oo ay muuqdaan xabaalihii shacbigii la gumaaday oo khayriyada Hargeysa ka lahaa anigu wax dili karaa duca qaadan maayo inay maanta ku eedeeyaan cid maxkamadda la soo taago haddii maxkamadda la soo taagayo kuwa dadka laayay waxa cad raadkii Muuse uu galay jidgooyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qof waliba wogi walaalayaal waxay la tahay Muuse dadka wuxuu leeyahay aakhiran u diraya waxa halkan jooga hawlwadeenadii xisbiga ee dhaawaca loo geystay ee la doonayo in la bajiyo marka waxa isleeyahay nin baan la kulmay oo xamar geeniyo dadka waxa ka dhaw marka ka aakhiro u diray la hadalaayo isagu xilli dadka hadalaayo safarka iyagaasi wuxuu safar gurmad Soomaaliland ah oo aan waxba ku barxanayn waxa la wax ku barxana ma jirin rag meesha maray rag Soomaaliland looga shakeeyo maaha waan marayay محمد بيحي يونس بمريي حرسي حاج علي بمريي عبد الساخ خليف بمريي محمد اسماء فضل بمريي رك فربضان مدحين كفعين حسبي مريي وهذا ثقافنا لو ما شكيه Soomaaliland باغراوند كيسنا ماله وهذا هادو صور الله isku maxkamadeynayo hada website waxa ku yaalay social media Muuse la sawiran Xasan Sheekh صور lagu dhijiyay meel waxa la tahay isna wala maxkamadeyn doona hadii sawir la isku maxkamadeynayo waxaan qabaa umada yaan dhala habaabinin wala tartamaya sheekooyinkii bariga hore socon maayaan garoonka ku xaadan ma rabaan ku tartano waxa la Muuse taariikhdaaduna way cadday tayduna way caddahay dalkana badbaadadiisa aan doonaynaa xisbi dalka badbaadinaya weey waxaan diyaar u nahay inaan tartano shacbiguna hadda waxa way ka ilbaxeen shuguxda la tumayo waxaan leeyahay shacbiga reer Soomaaliland way idin kala caddahay ka dalka badbaadinaya ka dalka midaynaya ka shacbiga isku tolaya iyo ka shacbiga qaybinaya Xamse Ali Bulbul Home Cable TV magaalada Hargeysa